يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم waxay leedahay sidii ay yihiin way ka wanaagsanaan karaan waxaana laga hadlayaa dadka markaasi dhibaataysan waxaan arkay video qof dhalinyaro ah oo iska soo duubay oo naafa ah hees ayuu qaadiyay marka dad badan commentiga waxay ugu soo qoreen ilaahay u laabo dadka qaar ee soo qoray ilaahay u laabo heesaha dambi waa iska daa bejajkooda iyo ciwaanadooda ayaa waxay soo duubeen heesa aad u tira badan iyo video aad isdhehaysid wax la daawo kara ma aha su'aal ayaa maskaxdayda ku soo dhacday oo waxaan isiri qofkan lixda laxaad qaba ma wuxuu aaminsan yahay inuu alle kaga dhow yahay qofka aan lixda laxaad qabin su'aalo badan markaan isweydiiyay waxa ay soo baxday xitaa heer waxay gaartay qofka naafada ah in loo heeso heestana waxay tahay ma ogtahay curyaankaba caga looma weynina cinka waxa loo yiri kuwa cagaha qaba inay ku cibr qaataan ayad quraane oranayso cinka waxa loo yiri in lagu cibr qaato ma jirto laakiin ayad waxa jirto ilaahay ku oranayo waxaan idinka abuuray dad kala midab duwan kala caqli duwan kala awood duwan taa micnaheeduna ay tahay awoodda alle laakiin alla muuse oran waxaan abuurayaa addoomo naafa ah si addoommada kale ay dambiyada hadday galaan ay ugu cibro qaataan waayo addoonkani naafada ah looma abuurin dartaa ee waxaa loo abuuray inuu ilaahay caabudo kuna sabro qadarta ku dhacda waxa ka sii daran haddii laba qof mid naafa yahay ay isqabtaan oo kan naafada ah laga gardaran yahay ilan qofku bilaadanka ah lama ciilo haddii aad ka gardaran tahay wax walba wuxuu ku dadaalayaa inuu yaciska ka dhaho haddii uu yaciska ka dhaho waxa laga yaabaa dadka qaar inay dhahaan balay illa aata ama lug la aata ama dhag la aatay qofkii baa la sii liidayaa waxaana lagu sii liidayaa qadarta alle aad qofka ku liidaysid ma ogta adiga xataa inaa kugu dhici karto ogta alle inuu yiri sida inay ka wanaagsanaa karaan haddaba waxaan ku xasuusinayaa dadka dunida ugu wanaagsan ee saaxiibka laga dhigto inay yihiin dadka naafada ah sababtuna waxa ay tahay laba wax bay ka fikirayaan qofku markuu fikirayo fikirro badan baa niyadiisa ku soo dhacayo qalbigiisana wuu isbedelayaa laakiin qofka naafada ah laba fikir kaliya uu ka fikiraa fikirka koowaad waxa ay tahay inaad caawinayso markuu ku arko fikirka labaad wuxuu yahay inaad asigu ku mashquulaysid waayo wuxuu aaminsan yahay inuu ka duwan yahay laakiin qofka naafada ahayn maskaxdiisa maanta dhan way isbedelaysaa kumanaan fikir qalad iyo wanaag waa soo galay sababta keenta labada qof ee aan naafada ahayn inay badanaa isku dhacaan aysan isfahmin waayo waxa imaanaya shaki tiro badan laakiin qofka naafada ah ma shakiyo qalbi aad u weyn buu leeyahay qofkan kale ee aan naafada ahayn haddaad saaxiib ka dhigatid ama aad soo dhaweysatid waxa laga yaabaa naftiisa inuu ka shakiyo ama adigu ka shakiyo ama uu ku qiyaano ama uu ku dhibaateeyo ama uu ku diido horumarka aad sameynaysid laakiin qofka naafada ah mar walba niyadiisa waxa ku jirto xitaa haddaa horumar gaartid inaad caawinaysid buu og yahay waana sababta keenta inuu daacad yahay haddii aad fikirka qabtay liiditaanka dadka baahiyaha gaarka qaba horta waxaad iska daysaa inaad mar dambe isticmaalin ereyga curyaan waa liiditaan qofka aad ku liidaysid oo aad ku dhibaateynaysid waxa wanaagsan inaad isticmaashid qofka magaciisa ugu yeeri kartid laakiin haddii sheeko iyo arrin laga hadlayna qofku naafo ereyga naafo waad isticmaalaysaa si diinta nasteexa u noqoto waxyaabaha naga qaldana oo saxno qofku dhalinyaro hadaa taa wax badan way ka qaldamayaan isbedelkuna hal maalin kuma bilowdo isbedelku waxa uu ku bilaabanayaa qofku inuu maskaxdiisa ay fikirto si qalbiyadeena ay u noqdaan wax aad u weyn aynu ku dadaalno isku naxariisashada iyo wada qaybsiga nolosha waa saaxiibka shaahidiisani haddii aad video ka heshay asxaabtaada la wadaag wixii fikirkaaga ah commentiga waad igula wadaagi kartaa meel walba dunida kaga nooshahan Allah kugu xifdiyo assalaamu calaykum